waxaan idinku soo dhaweynaynaa qamalaan cabdi barako waxaan idin lisaynaa geela haleelada iyo kan kale ee mar hore dhalayba macallin Bashiir Shaaciye Ducaale waxaan kula kulmay tuulada Cabdi Barako oo hoosta degmada Goradhaamole tanina waa qisadiisa Bashiir waa macallin bara in ka badan 140 arday sidoo kale geel dhaqato iyo deeqsi mudan in lagu daydo adeer Bashiir waa dadka deegaanka oo markaas qabaleegan Cabdi Barako degan waxa weeye waana macallinka dugsiga ka dhiga sida uu idin sheegay Cabdi Barako waxa weeye madrasi malcamada khad iyo looxi lahayd waa macallinkii dhigay weeyaan imikana waxaan joognaa waxa weeyaan xirkii baan soo galnay waxaan isla raadinaa geelay aan lisi lahayn hal laba halaad aan soo lisnay waxa weeyaan saddex halaad ma soo lisnay tii afraad ayuu waxa weeyaan adeer Bashiirna la raadinaya waxa runtii waa soo dhaweyn wanaagsan ayuu noo sameeyay adeer waan kaga mahad celinaa soo dhaweyntaada aniga waxaan idinku mahad celinayaa imaadka noo imaadee ha martaqaana waan idinku soo dhaweynaynaa anaguna dadka ku daawanaya maxaa oran lahayd waxaan idinka codsanaynaa saad maanta noo soo booqateen inaad weligiin bas noo soo booqataan oo wax qabad weyn noo geysataan sida oo kale Bashiir waxa uu ka soo guuray deegaanka afraad ee Oromiya halkaas oo horena macallin ooga soo ahaa guuritaankiisana waxa sabab u ahaa Soomaalida iyo Oromada oo xilli hore colaado baan dhaxmareen ka taraad afraad baan ka soo guuray hay waka maxaad uga soo guurtay waxaan uga soo guuray waagi dagaaladii ay ka dhaceen kililkan Goradhaam degmadan Goradhaam wali u dhaxay magaaladan Jibri ay dheen naga guura hay wax Soomaaliya ma arki kar hay sababta aan uga soo kacay kililka afraad way waka daamaan ka imaanay anagoo kilil afraad aan ka soo barakacnay waa muddo laga joogo 4 sano hay aan diganahay qamalaan Cabdi Barako hay waxaan uga soo kacnay waaga waxbarasho la'aan hay iyo cunsuriyad hay lagu hayay imikana waxa uu degan yahay waxna ka bara tuulada Cabdi Barako hadii sheegtay markii dhaweyd inaad madrasada aad macallin ka tahay bal malcaamada iyo dadka aad barto intee leeyihiin ardaydaad ardaydan u dhigo waxa weeye 140 arday hay waxayna isugu jiraan 80 qora wiilal ah hay inta ka soo dhinaa dumar hay ka u sareeyal ku maraya bal iyo ka sheekay ninka ugu sareeyo wuxuu marayaa Isra caruurtan waxbarashada 200 xamar bay jiraan hay aniguna Hargeysa ku soo waxbartay awalkii hore way waka way marka qabaleega adu qabaleega dhex diganta masamiigana diganta ama qamalay miiga waan digana hay geelaaguna xagu jooga geelaygu wuxuu joogaa qaar halkan uu joogaa geelkan wuxuu joogaa didiimta hay argadab hay de anaga imika maanta waxaan noo listay ilaa 5 halaad geelaad noo listay runtii waxa tahay shakhsi aad iyo aad u deeqsinimo badan markaan ku weydiiyay waxa weeyaan deeca wax laga la sageelay ma jiray geela barreeb meeyba tiri deeqsinimadaada bal maxaad ku sababaysay anagoo marti ku inaad 5 neef noo waxa sababay marti imaaday waa inaan aniguna culayska igu baad waan aniguna cuslay hay taabana sababsaday caruurtayduna haday doonaan caawaqadaan way biri urtii maaleen dacaawayaan hay waka ma sha Allah Bashiir sidoo kale waxa uu dawladda ka codsaday in tuuladiisa loo dhameystiro baahiyaha aasaasiga ah waan codsanay iskuul waxbarasho iskuul caruurtu wax noogu bartaan hay maadaama aan malaha Soomaa iskuul uu leeyahay macallin bana loo keenay wuxuuna la joogaa 2 sano wuxuuna ka dhigay 3 bilood hay una mar uu galbada reerkiisa waa adilay markuu 5 bilood maqnaaday mar imaada hay cabashooyin badan baan ka geynay qamalaha adilay hay xafiis waraaqina waan dhignay ilaa macal waxaan dhignay degmada xafiiska waxbarashada xafiiska gudoomiyaha waan tagnay wax noo qabto manaan arag way marka waxa codsanaysaa adu waxbarashada in la idin xoojiyo waxbarashada in la xoojiyo kow hay awalan hay marka labaadna waxaan codsanaynaa maadaama beerana waan leen hay beer aad waaweyn baan dhulkan ka bixinay beeraan leenay markaan deganaan jirnay kililka afraad beeralayna waan ahayn dibi baa lagu qodi jiray markaan wadanka joog hay loo ma haysano dibina ma iibsan karaan dadku badana inta badan ma iibsan karaan inaa dibi ay dawladda ka shaqada noogu deeqdo maadaadii baa la doonaa nin hal dibuna la siiyo oo dhowr nin oo isku guddo iskaashataan laga dhigo inay nagu taageerto yaan ka codsanayaa dawladda kililka shaqada haween ardayda aad wax bartay ilaa xamar ilaa Hargeysa ka daawanaya maxaad fariin u diri lahayd maanta waxaan fadhiyaa maadaama macallinkooda inay aad ii soo xasuustaan ay madrasadana iga soo gargaaraan inay dhisaan maadaama ay madrasadu tahay
coosi waxyaala sana iyo sharaaci هاي oo kaana jiingadna way taal waxaanu lahay un xoogaha gacanta waxaan ka bixin lahaa nimankii waxiga واي okay macallin Bashiir intaasi kadib waxa uu noolisay 5 halaad oo kamid ah geeliisii waana xusuus aanan marnaba iloobi doonin isla markaana ku soo xasuusan doono tuulada Cabdi Barako iyo degmada Guradhaam oo leba